cabdirasaaq maxamuud jaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ayaa taageeray hadalkii shalay ka soo yeedhay maayarka degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad isagoona geesta kale baaq u diray baarlamaanka somalilan kaasoo weli hor yaallo xeerka cashuuraha dowladaha hoose ee somalilan. bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan doonaya ka hadlo kelmada kooban ka idhaahdo xeerka dooda badan dhaliyey ee laga wada hadlayay maalmaha laga hadlayay oo xeerka mideynta cashuuraha intaan ka hadlin marka hore waxaan mahadnaqayaa xukuumadda iyo madaxweynaha sida fiican ay uga howlgaleen arrinta ceelafweyn iyo nabadaynteeda. intaa kadib xeerkan buuqa badan dhaliyey ee maayarka burco ka hadlay ee sida fiican uga hadlay waa xeer ka mideynta cashuuraha. xeerka mideynta cashuuraha xilligii la sameeyey xilli fog bay ahayd, maantana ma hor yaalla golaha wakiilada. waxaa hor yaalla golaha wakiilada xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka oo saameynaya dowladaha hoose. waxaan u soo jeedinaa marka codsanaa golaha wakiilada xeerka gobollada degmooyinka maanta gacanta ku hayaan inay isla ku mideeyaan kabka iyo gunooyinka dowladaha hoose la siinayo, inay ku mideeyaan 12% kabka ee la siiyo dowladaha hoose ee dowladda dhexe siiso iyo 10% gaarka loo siiyo degmooyinka kastamadooda cashuuraha badan qabteen in la mideeyo oo laga dhigo inta la isku geeyo si siman loogu qaybiyo degmooyinka. ayaan u soo jeedinaa golaha wakiilada. golaha wakiiladu iyaga sharci dejinaya, iyaga sharci gacanta ku haya. waxaan ka codsanaynaa in si siman ay xeerarka dalka ugu dejiyaan, aanay cidna gaar ugu gunaynin, cidna gaar ugu cunaqotaynin. xukuumaddu xeerkan maanta golaha hor yaalla ma soo process gareyn. waxaa soo gudbiyey golaha dhexdiisa xildhibaano ka mid ah soo gudbiyey, iyagaa golahooda soo gudbiyey, goluhuna uu ka aqbalay in laga doodo wax ka mid ah kaas lagu sameeyo. waxaan ka codsanaynaa in dib u eegis lagu sameeyo 10% degmooyinka gaarka loo siiyo iyo 12% degmooyinka ay ka siman yihiin, in labadaa la isku daro dabeedna si siman loogu qaybiyo degmooyinka. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa golaha wakiilada. waxaan rajaynayaa insha allahu taala in codsigayga ay qiimayn doonaan insha allahu tacaala, ayna midayn doonaan labadaa lacageeyo 10% iyo 12%. aad baad mahadsantihin. xildhibaan maayarka iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee ka horeeya hadlay waxay aad u dhaleen xukuumadda iyo madaxweynaha taasi ka waran dhaliisha ay u soo jeediyeen. dadka qofka si wuxuu arkayaa aragtiyo kala duwan yihiin. maayarku horta si fiican buu hadlay oo halkay taabanaysay iyo taabtay xeerkana xukuumaddu shaqo kuma loo xukuumaddu xeer dejintii maaha, waa fulintii. golaha wakiilada iyo golaha gurta kala sugaya baarlamaanka ayaa sharci dejina. sharciga ay sameeyaan bay xukuumadduna fulisaan. cidda maanta sharciga gacanta ku haysta sharciga samaynaysa xeerarka wax ka bedelkiisa iyo kaabisiisa xaq u leh waa golaha wakiilada. cidda aan la hadlaynaa hadalkay ku dhacayaana waa golaha wakiilada iyo golaha gurta sharci dejinta dalka. xukuumaddu shaqo kuma laha xeerarka. waa maxamed sultaan, telefishinka caalamiga ee GTN magaalada Burco.